hogaamiyaha jabhadda TPLF Gabrasyon Gabra-Michael ayaa sheegay inaanay nabad buuxda ka hirgeli karin gobolka Tigrayga ilaa iyo inta ay ku sugan yihiin ciidamada Eritrea iyo kuwa gobolka Amxaarada wuxuuna sheegay inaanay maangal ahayn in gobolka Tigrayga ay qayb ka mid ah nabad ahaato iyadoo qaybta kalena ay ka socdaan waxa uu ku sheegay xasuuq ba'an. hogaamiyaha TPLF Gabrasyon Gabra-Michael ayaa hadalkan jeediyay iyadoo maalintii shalay wafdi ka socda dawladda federaalka Itoobiya ay booqdeen magaalada Maqale iyadoo booqashada noqonaysa markii ugu horeysay tan iyo intii ay dagaaladu ka bilaabmeen gobolkaasi. dawladda federaalka Itoobiya ayaa isbuucii hore si rasmi ah u qaaday xanibaadii saarneyd gobolka Tigrayga kadib markii waji labaad oo heshiis nabadeed ah isbuucii hore lagu kala saxeexday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. waxaana gobolka Tigrayga gaadhay wafdi ka socda dawladda federaalka Itoobiya iyo waliba hay'adaha gargaarka ah si markaasi loo dhaqan geliyo heshiiskii la wada gaadhay. 18 bilood kadib waxaa si nabada magaalada Maqale ku wada sugan wafdi ka socda dawladda federaalka Itoobiya iyo jabhadda TPLF iyadoo magaalada Maqale lagu soo dhaweeyay wafdigii ka socday dawladda federaalka Itoobiya. afayeenka TPLF Getachew Reda oo qayb ka ahaa soo dhaweynta wafdigan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan fulinta heshiiskan ayna ku galeen si bilaa shuruuda taasi oo uu sheegay inay ku kaliftay badbaadinta shacabkooda oo uu sheegay in ka badan muddo 2 sano ah inay ku sugnaayeen xaalad halis ku ah noloshooda iyo jiritaankooda. guud ahaan xaaladda magaalada Maqale ayaa ah mid degan waxaana maanta si rasmi ah loo furay duulimaadyada diyaaradaha ee magaalada Maqale iyadoo maanta magaalada Maqale ay ka degtay diyaaradii ugu horeysay ee sida dad shacab ah tan iyo intii ay dagaaladu ka soo cusboonaadeen gobolkaasi. si kastaba ahaatee heshiiskan ay wada gaadheen dawladda Itoobiya iyo xoogaga TPLF ayaan waxaan qayb ka ahayn Eritrea iyo ciidamada Amxaarada ee ku sugan gobolka Tigrayga iyadoo marar badan ay ka hadleen kooxaha TPLF. dawladda dhexe ee Itoobiya ayaan iyadu wali ka hadlin dhawaaqa ka soo yeedhaya kooxda TPLF xilli uu socdo fulinta heshiiskii ka soo bilaabmay magaalada Pretoria ee cariga Koonfur Afrika. ugu dambeyn toddobaadkan soo socda ayaa la filayaa in wafdi ka socda midowga Afrika ay gaadhaan magaalada Maqale si ay u kormeeraan xaaladda nabadda ee gobolkaasi.